على مساركي ugu weynaa taariikhda ayaa maanta magaalada Quljeed oo 30 kiiloomitir dhanka galbeed ka xigta magaalada Boorama waxa lagu caleema saaray Suldaan Abuubakar Cilmi Wabar oo loo caleema saaray suldaanka guud ee beelaha Jibriil Yunis oo kamid ah beelaha dega goboladan Awdal Salal iyo wadamada jaarka la ah Somaliland kumanaan dadweynaha wasiiro ka tirsan xukuumadda Somaliland xildhibaano ka kala tirsan golayaasha wakiilada iyo guurtida Somaliland fanaaniin ka kala yimid Somaliland iyo Jabuuti siyaasiyiin madax dhaqameedyo maamulka heer degmiye heer gobol culumaa u diin ayaa ka soo qayb galay munaasabadii la isku arkay ee maanta lagu caleema saaray Suldaan Abuubakar Cilmi Wabar goobtan lagu caleema saaray suldaanka cusub oo si weyn loo soo agaasimay ayaa waxa ay indhaha ugu qabanayaan marka aad soo gashid magaalada Quljeed qoraal soo dhaweyn ah oo lagu xardhay buurta ay caanka ku tahay magaalada Quljeed Suldaan Abuubakar Cilmi Wabar oo marka uu soo gaaray goobta lagu caleema saaray waxa si weyn u soo galbiyay dhalinyaro ku labisnaa dharka hidaha iyo dhaqanka oo farxad xoogan ay ka muuqatay iyadoo halkaasi heeso soo dhaweyn ah ay ku soo bandhigeen fanaaniinta Somaliland iyo Jabuuti ka kala socotay maayarka magaalada Boorama Cabdiraxmaan Shidabile oo deegaanka Quljeed ee maanta caleema saarka uu ka dhacay maamulkiisa hoostaga ayaa soo dhaweyn balaaran u fidiyay dadkii ka soo qayb galay caleema saarka suldaanka iyadoo waliba maanta ay muuqato calaamadahaagii ay muuqdaan oo dadku cadceed baa dili lahayd roob ilaahay keenay dhulkuna qabow yahay taasi waxay ka mid tahay calaamadaha qofka wanaagsan waxaan leenahay waa kugu faraxsanahay afayeenka beelaha Jibriil Yunis Jaamac Faarax Xareed oo madashan caleema saarka isna ka hadlay ayaa ka sheekeeyay qaabka ay u soo xuleen suldaanka sameeyay guddigu markuu raadca galay guddigu markuu eegay shuruudaha u qoran guddigu wuxuu go'aansaday 41 xubnood ee halka fadhiya waxay go'aansadeen walaalayaal inay shuruudaha 21 shuruudood ay ku soo xulaan kama gaarsiin karo 21 shuruudood raadin gudaha iyo dibadda kadib waxa guddigu go'aansaday inuu soo xulo Suldaan Abuubakar Cilmi Wabar Sheekh Cabdillaahi Sheekh Cali Jawhar oo ah sheekhul beledka magaalada Boorama oo madashan isna ka hadlay ayaa u duceeyay suldaanka cusub ee beelaha Jibriil Yunis wuxuuna suldaanka cusub guddoonsiiyay hadiyad uu ka keenay dalka Sacuudi Carabiya Suldaan Abdi Gaboobe ayaa ku dhawaaqay caleema saarka suldaanka waxaana markaas la caleema saaray Suldaan Abuubakar Cilmi Wabar suldaanka cusub ee beelaha Jibriil Yunis Suldaan Abuubakar Cilmi Wabar oo kadib caleema saarkiisa la hadlay saxaafadda ayaa waxa uu yiri badan isaga yimiday magaalooyinka kala fog ayaan u mahadnaqayaa dabaysha iyo dhaxanta iyo roobka ugu dib jiray xaflad sharafeedna nimaan u mahadnaqayaa inta maanta ka soo qayb gashay haday sultaan tahay haday caaqil tahay haday wasiir tahay iyo haday xukuumadda tahay boqorka tahayba haday shacbi tahayba gabadh iyo wiilba aadkaan nigu mahadnaqaya taariikhda iyo noqonaysaa waxa weeyaan waa waxaan idinku ducaynayaa in ilaahay barwaaqeeyo amiin qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay munaasabadan caleema saarka suldaanka ayaa dareenkooda ugu waramay Somali Channel faraxsanahay suldaanka beesha Jibriil Yunis oo Suldaan Abuubakar aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waan soo dhaweynayaa aad baan ugu faraxsanahay beesha Jibriil Yunis soo dhaweeyay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay shucuurtayda haddii aan ka hadlo aad iyo aad maanta u qurux badnay lagu tilmaami karo maanta sida beesha Jibriil Yunis soo dhaweeyay aad iyo aad ma arag dadkan oo kale si qurux badan baa loo soo dhaweeyay si qurux badan baa fadhiga looga kacay sidoo kale ma arag aad iyo aad baan ugu faraxsanahay caleema saarkan maanta magaalada Quljeed lagu caleema saaray inuu Suldaan Abuubakar Cilmi Wabar noqdo suldaanka guud ee beelaha Jibriil Yunis
waxay noqonaysaa caleemasaarkii abid gobolkani ka dhacay oo suldaan loogu caleemasaaray islamarkaana ay ka soo qayb galaan dad aad u tiro badan oo ka kala yimid deegaano fogfog oo gobolkan Awdal iyo guud ahaan wadamada jaarka la ah Soomaaliland ka kala yimid kuwaasoo aad ugu faraxsanaa inay ka soo qayb galaan munaasabadan ballaaran ee maanta lagu caleemasaarayo suldaan Abuubakar Cilmi Wabar. Cabdi Fataax Ahmed, Somali Channel, magaalada Qulijeed.